سعيد سفر بوجيرا ونصو صعدا أما يكدعدا waxaan arkayay madaxweyne dani oo afar sano ka shaqeynayay kala goynta ummadda Soomaaliyeed diidanaana wax Soomaali la yiraahdo xamarna nacayb u qaaday beeraha wiye oo Xasan Sheekh ka soo jeedana uu yiri khatar bay nagu yihiin oo maamulkii waqooyi bari ula dagaalamay Xasan Sheekh oo isagu uu keenay bay raaceen oo hawiya laascaanood rabo inuu Puntland ka burburiyo ummadda ku maaweelanayay oo siyaasiyiintii reer Puntland iyo ismadii reer Puntland ee lahaa war hawiya iyo Xasan Sheekh ba adaan noo keenay adaana shirkooda joogay muduloode wax dhibo uma qabno uu ku shaabadeeyay inay xamar lacag ka soo qaateen horta waa kana odayaal hawiya la fadhiya wuxuu la fadhiya Xasan Cali Khayre iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur agtiisana waxa yaala calanka Soomaaliya oo aan lagu arki jirin afartii sano ee la soo dhaafay heer uu gaaray inuu Somaliland ma taqaanay la qadiyad noqdo oo fagaarayaasha ka dhaho Somaliland xaq bay u leedahay inay goosato Puntland lacag bay samaysanaysaa waanu goosanayna caawa kaasa wuxuu sameeyay caawa golaha mustaqbalka Soomaaliyeed waa golihii uu mar kale rabay inuu Puntland uga dhigo jaranjaro filla Soomaaliya uga boodo sidii 2022 waxaan leenahay markii halkan iiga waxa qoladii Puntland virus ii war qoladii Puntland virus ii Puntland virus tibay la bixin balse Puntland virus bay ahaayeen kooxdaas dul bahantay caynayeen oo waxay lahaayeen Xasan Sheekh baad raacdeen hawiyaad raacdeen siyaasiyiin reer Puntland Cali Xaaji Umar Cabdirashiid Boqor Burhaan Suldaan ismada ay caynayeen oo waxay Xasan Sheekh baa lacag laga soo siiyay hadda waxaan leenahay lacagti reer Puntland maxaad hawiye ugu raraysaan xamartii aad shalay dadka ku caayaysan maxaad hadda ugu socotaan ma bila mowqif baatiin bila mabda miyaatiin kulay dad bila mabda baatihiin midnimadan Soomaaliyeed ee aad hadda ka shaqeynaysaan maxaad afartii sano uga shaqeyn weydeen waxaan arkay iyagoo meel kasta ka qorayo madaxweynaha Soomaaliya dani weey 2026 waa in midnimada Soomaaliyeed laga shaqeeyo midnimadan maalintaad rabtaan aad jeebka kala soo baxaysaan maxay tahay bal qoladaas fariintaydaas gaarsiiya bila ajandaha وبلا مبدأ وبلا أركتدا halkan waxaan fariin uga dirayaa beelaha Puntland hadii xildhibaano jiraan oo baarlamaan Puntland uu jiro iyo hadii siyaasiyiin Puntland maanta waan dareemayaa rag badan oo siyaasiyiin oo garowe iyo gaalkacyo boosaaso joogay abaabulaya oo mucaarada waan arkayaa ayaga fariin baan u dirayaa baarlamaanka Puntland fariin baan u dirayaa baarlamaanka Puntland waxaan leenahay shaqadiina qabsada dani umaanaan dooran inuu Puntland jaranjaro ka dhigto muslina laba god laba jeer lagama wada qaniino hadii shalay aan hantidii reer Puntland oo dhan intaan u xaabinay aan ira orad xamar aad oo ku soo hangoobay mari dage allay dagay mar labaad daga saanays dagay annagu malnihin maalin kasta hantideena iyo canshuurteennaba annagu xamar uma sii wadi karno uma raay karno shaqadiina qabsada mooshin halka qaadis waa inaad diyaarisaan madaxweyne Puntland doorta Puntland ku indhaqaba Puntland dhulkeeda aaminsan Puntland khilaafaadkeeda gudaha xalliya Puntland ammaankeeda ka shaqeeya ciidamada u diirnaxa madaxweynahan xamar buu indhiisu u jeedaane waa in xilka qaadis degdeg lagu sameeyo degdeg waa in xilka shaqadiina qabsada idin tilmaam waayo shaqadiina waa inaad qabsataan waa hadii baarlamaan meesha ka jira way kala baarlamaanka yarkii warsangeli uu gudoomiyaha baarlamaanka ka aha ma taqaanayay wax nafla waa ku jiraan laakiin si ilama ah haday dhici weyda Soomaa oo baarlamaan oo shaqadiina aad qabsan weydaan kala baarlamaanka waa la afgambi 2019 baarlamaanka Puntland la afgambi waa xaqiiqo dhoobo daareed markii la dilay la afgambi baarlamaanka baarlamaan meesha kama jiro halkan waxaan fariin uga dirayaa siyaasiyiinta mucaaradka ee Puntland Farsti talada koowaad aan sinay waxa weeye xildhibaanadii uu la aadi jiray xamar maalintii dhaweyto haduu ma taqaanay aan u dagmanay ama dadku aysan wax badan fahansaneyn hadda la fahanay beel kasta iyo siyaasi kasta oo mucaarada jifidaada xildhibaankeeda yaan laga boobay yuusan dani isin ku noqon oo islaam ku noqon ama boqor ama caaqil hadii uu kuwa qorto kuwa kala qora waxa qadar rasmiga ah waa in la difaaco xildhibaanada 2026 ee Puntland ka soo bixi jiray waa inuu san ninkaasi salad ka dhigan waa inuu san salad nin walba mudug nugaal bari
كل ازديارية هوب كاجي عيدا كاجا ديارسو حل بانك الرير كاجا اسم كاجا حق ولا إنه حلو دني حق ما لها إنه قرطه حل بانada سيد لبا كل لباتين لبا كنعضي وعقد الرسمي كا رنت الله يسوي شيء سيدا صدا سميسان حالة داعيري كل نقنيسا حل بانا وقاتنا هلي مايو برلمان كنا شغلوا ضويني قبصان والله حساب تمان أنت الرير بنتلان نيروبي يا حمر لقوا جبيو هوية شلي ونقول نقولها وعادة وبنتلان بيكوسوا الدولين مركا خيرية عبد الرحمن عبد الشكور وين سماها يشتري وين ميا مسوا دقلي مرفل عندها مت مسوا مريعان ها هوية وشلي نقولها بهذا العقد سينا يعني وإلا قبتوا ولا حساب تموي هذا يتسدع ويا سماها دلدلاع وين وديار جروب بنتلان 2029 مرنا ما دعيس سعيد عبد الله دني إنه غور سجارة كوهايست بنتلان إنه كدكتب بويس علس ما أركتن مزاجت كمركات ربطتين سفكر أن لقاقته كان عماد بعد جالس أنت سوي سنسد أنتوا حمر كسر لواني بنتلان إنه بويس علس عماد دكتو لا أقبل ما يمر ضبي وما درير بنتلان ومرن هبابية وكلها ما تغنى يا حمر بين لو قصوا الدولينا هبرجع علي موسى واكاس السعيد دنيجي الشلي أفرت السنة إذا الله هذول بهنتا عدو حسن شيخ ويراعين واكنا وضيال شاوي اللفدي وعبد الرحمن عبد الشكور وخيره وشيخ شريف أنهم هويا كلا جعل الله هويا ضد صوماليا أنه كأمين سنة حمانية سمان بله لكن سين قارن عدو ولا قد قارن لده هو بالكي وعادي أقبل ما إنه عقلي أن اللي عيار مايو ضدك عقلي وضع كو عيارنا عاوها كده حقفتان هل كان إذن كجد جي مركي محالة ضمريسو معاكو الله يسان عاوي معاد الله يسان معنا قد يسان dadka caayaysan iyo siyaasiyiinta reer Puntland oo cali xooshe kamid aha dawladii bay la shaqeynayeen oo xad siciidani keenay maamulkii waqooyi bari oo dul baahanta lahaydaan xasan sheekh way soo raaceen dawladii sharciga ahayd ee dani shalay keenay bay la shaqeynayeen ninkan maanta hantideeni ku aan sharciga haysan oo aan waxba xilahayn ku qarash gareynaya maxaad ka leedin markii misahawiyaa kan sharciga ku jooga khatar ah kan sharci darada ahna waa caadi sidii farmaajo kale oo ku dhacday oo kale aqligiina lagu ciyaariya maalinka sana madaxiina meel kale ha loo jeediyo la xisaabtama ninkan mar dambana ma taqaanaa ku sirminina wixii la idin sheegi jirayna waa ka kac baan wax cadow ah oo nagu soo dulay ma jirin danihiisa isaga nagu soo dulay laftigiisa nagu soo dulay oo umada reer Puntland jaah wareerinayay عيدين من الله يراهد أنت مكرفون اللي دوا حمر عاي مو عاو كله يا مرك إلا الحمر تيو عيري يدت كيلو البانتي يوسيري سياسيين تلو البانتو محمود يراب كل شيء كوي ريار بنتلان وكلها عيسى الدبلة وكل شيء وسياسيين عيسى محمود إسقوا مركب محاول مركب إسقوا ما ذاك عصبة إلا نسقى عبر قدر يعاو من رصاد عجوه ها سعيد دنيا عيدين يقول ما ذاك عصبة هذا يكون محمود يراب نقدان وسياسيين عيسى محمود أي نقدان عيسى الدبلة سعيد دنيا عيدين ومدر كعس رابوي محمود مدر كعس بانو بحيلنا محمود سلامانكي انه كانوا البانتي عنده عيديد سعيد عبد الله الدني محمود سلامانكي ما تقنا يعاوي كسو اغموده خيريه شيخ شريف يو وعندنا ان دوا هبر قدر ومدر كعس راب الاورنجري ومدر كعس رابوي markii waa xaqiiqada asaasi noqonaysa ummadii oo dhan hawiye isugu biyo kuwa hawiye raaca oo ma taqaan ay khayriyo sheekh shariif soo raaca iyo kuwa dawladii sharciga ahayd raaca oo maamulka waqooyi bari iyo siyaasiyiinta kale ee cali xoosh uu la mid yahay la shaqeynaya waa tay keeneen iyagu yuu ku eedaya farmaajo oo darada soo kursiga ma joogin soo kama qaadin ninka uu nimay la shaqeynaya isagaana yiri waa la shaqeynaya qalad male cid qaldan oo wadada qardajeeca maraysa waa isaga caawin ummadii reer Puntland ee lahayd xamar wax dambe kuma darsanayno oo ma taqaanay Puntland baa inagu filan caawi cid la idinkaga tagay ka xaabiya waxaan anigu ka sii hadlayna waa intaas waxaan ka baqayay haddaan dhaqan xumadiisa taageero inay caawi cidladaas iga tago maxaad caawi dhahaysaa caawi midnimo Soomaaliyeed baan ka shaqeynaa yaa idan ka raba midnimo sawtaad dhahdeen ma taqaanay Soomaaliland xaq u leedahay inay goosato adkaatay war qaybtaas aragtida in la wadaaga aad baan idin salaamaya